maadaama tobigani uu yahay tobig aad xasaasi oo in badan oo taariikhda aadamahana laga soo hadlayay oo inta badan aqoon-yahanku waxa la yidhaha siyaasadda kuma guulaystaan kunoo saacadood waxa uu akhriyo ama uu effort geliyo wuxuu ku noqonayaa qof specialisti yani intellectualku wuxuu ka soo dhex baxaa dadkan ma garanaysaaye qaadaama dhergaha ah oo waxa weeyaan ka runta sheega weeyaan haddii markaa innaga aad aragtaan aad is odhanayso waa niga qofkan yaa xilku ugu dhiiba siyaasaddu waxa weeyaan nidhi sida bulshadu ay isku maamusho qof walbana wuxuu xor u yahay inuu wixii constructive bulshada uu ku darsan karo wax gabay loo qaadayo siyaasigii oo adiga arkayo ma garanaysaa aniga laftayda maalin dhawito anoona siyaasigan waxa laygu dulduubay haldoorka miidhiyihii baa qaadaya waxa lagugu soo dulduubayaa maaragtay ama habar yar guulayso ama wax kale intellectualku waxa weeyaan qof bulsho ahaan committed sidoo kalena dadka laga dhex arki karo doctor hebel weeyaan aanan ahayne qof runta wax ka sheega doodiisaana evidence ama caddayn ku saleeya oo dee wax rationala keena elitiska ama dadka bulshada hogaaminayay wakhtigaa gumaystaha kadib oo ay ku jiraan aqoon-yahanku sida ay u khiyaamayaan sidii bal waxan la iskugu hayn lahaa nidaamkeena qabiliga ah ee odayga cashuurta weli soo guro ee uu haddii qofkii wax sameeyo chief caaqilkii soo xidhayo iyo nidaamkeenan cadaaladeeda formalka ah ee maxkamadihii leh ee booliskii leh ayaa uu ka hadlayaa marka xilligaa mucaaradad adag iyo dimuqraadiyad iyo wax walba way jireen afgembigu markuu dhacay wixii ka dambeeyey markaa maxaa dhacay military rule baa yimid iyagoo wariyayaashoo xaqiiqay noo soo gudbiya waxaa laga yaabaa in intaasoo xadhiga ay la kulmaan haddaanan la dilinba ninkaasi xigmad baa ku jirta laakiin wax loogu joojiyo power loogu joojiyo iyo dhaqaale loogu joojiyo inuusan lahayn baa laga yaabaa markaa wajaalla dhinacan soke markaad joogto waxa laga yaabaa dadka jigjiga tagaa garanaya magaalo qaranna ducaa lagu dhaafaa marka labadii jeerba waa hashii laba midig la garaacay dhanna uma fayoobo weyaan siyaasaddii buu soo galay waa intellectual in badan buu falanqeeyo uu soo galay xildhibaan buu rabaa xildhibaankii waxay haystaanba mid reerkoogiya structure-kana kama baxsan karo bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadleh inagoo caafimaad qabnaa isku keenay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha oo wakhtigoogii qaaliga ahaa halkan inaanu maaragtay wax ku kala faa'iidaysano u soo huray sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa xikma foundation iyo maaragtay institute-kan xikma institute oo aan muddo badan macaamil ahayn inuu madasha noocana uu soo qabanqaabiyo markaad wakhtiga soo socda 30 minid ama 25 minid ee soo socda waxaan eegi doonaa bal topiga ciwaanka inoogu qoran ee ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed ama aqoon-yahanka Soomaalida iyo siyaasadda tobigani ma aha tobig imika unku cusub maaragtay Soomaalida iyo ma garanaysaa aqoon-yahankeega waa debate adduunyada soo jiray intii taariikhda dunidu jirtayba dad baa xikmad iyo aqoon lagu tuhmi jiray kabacdina bal waxaan eegi doonaa sidee tobigani uu soo jiray ilaa maanta oo xaaladda maanta iyo qofka Soomaaliga ah ee wax bartay iyo siyaasadda ayaanu eegi doonaa marka halkan waxa aan ka soo jeedinayaa laba cudurdaar mid waxa weeyaan waxaan u hadlaynaa si akaademiga oo waxba la iskula hadhayn oo critique leh marka anigoo doctor Sakariye Cabdi Bade ah oo magaca akaademiga wata ayaanu meeshan wax walba oo topiga ku saabsan si aan gabasho lahayn aanu uga hadli doonaa title-ka agaasime jeebkan ku haysanaya maanta waxaanu eegi doonaa markaa topiga iyo ma garanaysaaye 5 qaybood baan oo kooban baan kusoo koobi doonaa barnaamijkan marka koowaad bal in hordhac aan u samayno si aan ugu soo dhawaano ugu dambeynta inaad su'aalo keeni kartaan ama fahankiinii uu tallaabo ay noo dhiibayso si ugu dambeynta idinkoo ugu yaraan wax fahmay ama wax saluugsan aad hadhow towladib u baadhaan aad meesha kala tagtaan marka hordhaca waxaan samayn doonaa bal waxaan samayn doonaa qeexitaano siyaasaddan laga hadlayo
aqoon-yahanka laga hadlayo iyo kelmad kaloo aqoon-yahanka ku lamaan oo indheer garad ah. Englishka waxaa lagu yidhaha scholar iyo intellectual ayaan eegi doonaa. Hordhaca markaan ka dhammaano, maadaama tobigani uu yahay tobig aad xasaasi oo in badan oo taariikhda aadamahana laga soo hadlayay ilaa waqti hore ilaa haddana wax socda uu yahay, oo inta badan aqoon-yahanku waxaa la yidhaha siyaasadda kuma guulaystaan. Marka waa debate meesha yaalla, waxay la muufaysanayaan ama ay iskala beriisaynayaan dadka powerka haysta, maya ma iyagay wax ka sii yihiin, ma baqdin baa u geynaysa. waa topic debate adduunyada yaalla weeyaan. Markaa si aan bal doodeenna u qaabayno oo aan uga dhigno wax ma garanaysaay evidences iyo le ma garanaysaayey framework ama maaragtay theory, waxaan eegi doonaa bal 4 aqoon-yahan oo topigan globally ka hadlay. arrintaa markaa waxay inaga saacidi doontaa inaan inaguna doodeenna frameworka aan ku dul dhisno. haddii markaa la waayo evidence ama wax caddayn ah, waxay naga noqonaysaa markaa gole ka fuul oo qof fikir halkan la yimiday oo sida uu jecel yahay u dhigaya ayaan noqonaya. markaa taas si looga fogaado, meeshuna ay u noqoto meelaan wax ku kala faa'iidaysano, waxaan u samaynaynaa markaa sees aragtiyaha adduunyada ka taagana ayaanu u dhigi doonaa aqoon-yahanka iyo siyaasadda. kabacdina waxaan ku ablay garayn doonaa contextkeenna ama tan Soomaalida. arrintaa markaa waxay noo saacidi doontaa inaanu fahanno doodaha jiray iyo sida ay kala yihiin. qof walbana maskaxdiisa waxa ku sawirmi doono markaa globally wixii jiray iyo inagu meesha aanu ka taagannahay. markaa sababta saa loo sameeyana waxa weeyaan inta badan academic uu ka duwan yahay hadalka caadiga waxaa loo sameeyaa background ama theoretical framework wax la isla garan karo. maanta markaa haddii qof uu dib u baadho cilmi baadhis ku sameeyana ama runun bay noqotaa oo wixii hore laga guuraa ama maaragtay intaa dadka ka dambeeya uun baa baadhay. markaa maadaama dad inaga da-weyn oo inaga horreeyay waxaan xilli hore soo eegeen, waxaan eegi doonaa markaa 4 caalim oo topigan maaragtay doodooda aan ku dul dhisi doono. kabacdina waxaan eegi doonaa markaa taariikh ahaan aqoon-yahanka Soomaalida iyo kaalinta uu ku lahaa siyaasadda ayaan eegi doonaa oo qodobka 4. qodobka u dambeeyana waxaan eegi doonaa istiidada maanta ama dileemada maanta haysata aqoon-yahanka Soomaalida iyo arrimaha siyaasadda. marka waxaa laga yaabaa halkaa maskaxdiina inay ku jirto ninku isagaa isduqeynaya oon isduqeynayna yes labadiiba, maadaama hadda inkastoo boos technical aan joogo oo uusan boos siyaasi ahayn, haddana waxaa laga yaabaa in su-aalihiina aad ku dhistaan waana soo dhaweynayaa. marka waxaan ku bilaabayaa qeybta koowaad. waxaa jira dhowr kelmadood, 2 kelmadood oo inta badan isa saaran oo dadku in ay fahmaan ay tahay. mid waxa weeyaan scholar oo ah aqoon-yahan af Soomaali in ay u dhowdahay baa laga yaabaa, laakiin haddii definitionska kelmado kale oo af scientific uu Soomaaligu lahaan lahaa waxaa laga yaabaa wax kale in jaamici oo kale loo bixin lahaa. waayo scholarku waxa weeyaan ama waxaan iminka inagu aqoon-yahankaan u naqaano waa qof soo dhigtay waxbarasho disciplined ah. wuxuu galay school, wuxuu galay primary, intermediate, secondary degree buu qaatay. kaasi waxa weeyaan scholar waxa la yidhaahdo ama jaamici ayay af Soomaali ku noqonaysaa. oo waxa lagu aqbalayo qofkaasi waxa weeyaan shahaadooyinka uu sameeyey ayaa waxay indicator u yihiin ama ay muujinaysaa in qofkaasi uu ma garanaysaayey uu jaamici yahay, oo uu degree haysto, oo uu master haysto, oo uu PhD haysto. halkaa qofku wuxuu ka garan karaa markaa dadaalka iyo effortiga iyo timeka uu qofkaasi uu bixiyey. kaasi waa scholar ama waa jaamici. aqoon-yahanka waxay isku dhow yihiin inta badan kelmad kale oo intellectual la yidhaaho oo ma garanaysaayey af ingiriisiga waxay ku noqonaysaa intellectualku waxa weeyaan ama iskuul ha ka baxo qofku ama jaamacad ha ka baxo, waa qof bulshada u fikiri kara ama waayo aragnimadiisa markaa meelaha cilmiga uu qofka bini'aadamkii ka helayo way kala duwan yihiin. sources of knowledge waxaa laga yaabaa inuu iskuul galo oo nidaamkan formalka amaro halkaa uu cilmi ka helo.
waxa laga yaabaa inuu waayo aragnimo ku helay oo ninka imika shanta qaaradood soo maray dhaqanada dad kala duwan buu garanaya waa meeshii markaa Soomaalidu ay lahayd ninaan dhulmarin daayala weeyaan oo experience kaas qofku ku noolaabo cilmiga ku helaya dabku ilmuhu wuxuu ku ogaadaa maalintuu gubto ayuu kalmadda macnaheega uu bartaa marka intellectualku isagoo backgroundkaasi waayo aragnimadiisa noloshiisa meel uu ku soo jabay leh ayaa waxa laga yaabaa in uu bulshada u fikro kaasi marka waxa weeyaan kaanu inagu aqoon-yahanka u naqaano aqoon-yahanku ma aha intaan jaamacadda aan ka baxno bis cilmiga waxa aqoon-yahan waxa source u ah waxa base u ah laba shay kow waa inuu kayd aqooneed leeyahay kayd aqooneed waa maxay library-gan waa inuu ka dhex bixi karo qayb oo ninka dee library-ga imika akhriyey qaybta education-ka oo dhan qofka akhriyey waxaa la yidhaha qofka biniaadamkii 10 kun oo saacadood waxa uu akhriyo ama uu effort geliyo wuxuu ku noqonayaa qof specialist kayd aqooneed weeyaan ta koowaad talabaadna waa critical thinking inuu qofkaasi leeyahay oo wixii aan akhriyey ma sideedaan u qaadanaya buug sita ma noqonayo waxbaan ku darayaa waa markaa space-kan criticism-ka ama critigu meesha uu ka imanayo weeyaan marka qofka biniaadamkii waa inuu kayd aqooneed leeyahay waa intuu akhriyey iyo critical thinking siduu waxaa macno uga samayn lahaa marka educational planning sidee loo sameeyaa buuggaasi hadduu Maraykan ka yimid dee Maraykankii maaha meeshani waa inaa contextkeena uu qofka aqoon-yahanka intuu qaato principleska guud uu contextkeena ku salayn karo marka intellectualku waa ka isagoo iskuul tagin buu wuxuu noqon karaa qof abwaana qofka abwaankii cilmigiisu muxuu ku salaysan yahay number of words ama vocabulary-ga uu yaqaano iyo sida uu duruuf ugu ekaysiinayo marka aqoon-yahankuna waa art isaguna research markuu samaynayo duruuf wadanka jirtay unbuu ka soo ururiyaa dadka aragtidooda kabacdina uu macno u sameeyaa halka abwaankuna uu duruufta kelmado uu ku sheego marka labadaas waa inay noo kala duwanaadaan scholar ama jaamici waa inaan nagu naqa kaan ka hadlayno marka waxa weeyaan intellectual aqoon-yahanku waa intellectual marka wuxuu noqon karaa qof jaamacad ka baxay wuxuu noqon karaa qof abwaana wuxuu noqon karaa qof iskii wax u akhristay oo aanan jaamacadba gelin baa ayaa laga yaabaa marka inuu yahay qofkaas laakiin wax akhriska jecel wax akhriyey kabacdina maaragtay wax fahansan politics markaan u nimaadno ama siyaasaddu labay noqonaysaa siyaasaddu waxa weeyaan horta bulshadu say isku maamusho biniaadankuna horumarka ugu weyn ee uu gaadhay waa dowladnimo wax la yidhaahdo inuu dhiso ayaa la yidhaha nidaam dowladeed oo dadko dhan inkastoo dowladdii islaamiga iyo dee nebiguba calayh isalaatu wasalaam ay dowlad ahayd haddana biniaadamku waxa uu mar walba sii horumariyo waxa weeyaan maaragtay dowladnimada marka hadday formal tahay waxa laga hadlayo waxa weeyaan siyaasaddaasi hadday formal tahay waxa laga hadlaya waa wasiir waxa weeyaan madaxweyne bosishanadaas doorashooyin inuu qofku hankiisa oo maaragtay uu soo bandhigo oo isa sharaxo oo urur galo waxyaabaha ama xisbi galo informal markay tahayna waxaa laga hadlaya waxa weeyaan powerka ama awoodda qofka oo stateku waxa la yidhahdaa ama dowladdu waxa weeyaan cidda keliya loo ogol yahay violence inay adeegsato ama inay hubaysnaataba waa sababta askarigu qori halkaa u watay adigu aanad soo qaadan karin marka waxaanu ka hadlayna waxa weeyaan power clan ama waxyaabahan reeraha iyo dadku siday u maaragtay abaabulan yihiin iyo ideas fikradaha maaragtay siyaasiga ah sida uu aqoon-yahanku u qaabeeyay intaa markaas waxay noo noqonaysaa markaanu aqoon-yahan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa kaa intellectualka indhergaradka ah ma aha kii jaamiciga ah ee jaamacadda ka soo bixay degree maaragtay adduunyadaba way jirtaayo dee qofku intuu degree engineerina ka soo baxo dhismaha ku mashquula siyaasadii waxa kama hadlo inagu laakiin wixii oo dhan baa la isku qaadaayo waxaa la odhanayaa aqoon-yahanku muxuu siyaasadda u geli lahay ayaa wax laga yaabaa in la yidhaahdo oo nolosheenii in badan ay siyaasaddu qaabeynayso haddaan u soo daadego markaa inaan theoretical ground aan samayno ama si aan waxaan u fahanno wixii horey looga yidhi iyo doodaha yaalla aanu u fahanno waxaanu eegi doonaa afar caalim waxaan ugu horreysiinayaa Antonio Gramsci aqoon-yahan la odhan jiray oo wuxuu qoray boog la yidhaahdo Prison Notes isagoo jeelka ku jira
ayuu qoray waktigii faashistigu way haysteen talyaaniga waxaa jira wax la yidhaahdo buu leeyahay isagu cultural hegemony iyo qofka indheergaradka ama intellectualka kaalinta uu ku leeyahay hegemonigu waxa weeyaan ama gumayste iminka inagu waxaan ku jirnaa waddamada gumaystaha kadib xorriyadda qaatay ee dowlad noqday dowlad sidanoo kale ah ma jirin dee waktigii gumaystaha ka hor hegemonigu marka waxa weeyaan dunida berigii hore gumaysto waxay ku maqoonin jireen xoog ama dee nidaamka dowladeeda jira markaa xoog buu dadka ku haystayba ama boqor ha ahaado ama ma garanaysaaye suldaan ha ahaado oo ma garanaysaaye ama ha ahaado nidaam kale dadka xoog baa lagu haystay baqdin bay ku howlgeli jireen hegemonigu marka waxa weeyaan iyadoo taa laga guurayo in dadka dhinacii dhaqanka iyo dhinacii aqoonta iyo laga soo maro oo la tuso maaragtay nidaam ay ugu hoggaansami karaan dadka awoodda haysta marka wuxuu u kala qaybinayaa indheergaradka isagu labo qolo waxa weeyaan traditional wuxuu u bixiyey intellectual marka traditional intellectualku waxa weeyaan aqoon-yahan u adeega dadka markaa awooddaa siyaasadeed haysta ayay u adeegaan waxay dib u abuuraan un markaa ideologiska ama sidaa awooddu ay u jirto unbay dib u abuuraan waana aqoon-yahan waxaa laga yaabaa inuu culimo noqdo waxaa laga yaabaa inuu aqoon-yahan kale noqdo waxaa laga yaabaa inuu suugaanyahan noqdo ayaa laga yaabaa kabacdina wuxuu adeegayaa markaa tiimkaasi meesha jooga ka labaad wuxuu bixiyey organic intellectualku wuxuu ka soo dhex baxaa dadkan ma garanaysaaye qaadaama dhergaha ah oo waxa weeyaan ka runta sheega weeyaan haddii markaa innaga ad aragtaan dad badan oo aqoon-yahana oo aanan weligood maaragtay aad is odhanayso waa niga qofkan yaa xilku ugu dhiiba oo runtuu ka hadlaayo thats organic markaa waa qof aanan regardless of positionku joogo iyo wuxuu dan leeyahay iyo waxaasi aynan waxba ka gelin laakiin ka hadla runta markaa taalla waa organic markaa kaasina haddii markaa kaa koowaad aanu soomaalida ku dabaqno ama aqoon-yahanka soomaaliya waxaa laga yaabaa in hay-ado badan oo cilmi baadhis jaamacado badani ay u adeegaan kaa traditionalka marka maanta haddaad adigu su-aal iska weydiiso tiraahdo war aniga noloshayda go-aamadan siyaasadeed ee saameynaya ayaan ka hadlayaa waay waxaa laga yaabaa in jaamacaddu ay ku tiraahdo halkani ma aha adeer meeshii siyaasad lagaga hadlayay wax baro waxaa laga yaabaana inaad barato faculty of economics and political science inaad dhigataa laga yaabaa waxaad dhiganaysaa kuliyadda dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaasaddu waxa weeyaan nidhi sida bulshadu ay isku maamusho qof walbana wuxuu xor u yahay inuu wixii constructive bulshada uu ku darsan karo haddii markaa institutionada ama xafiiska aad ka shaqayso ama meel jaamacadda aad dhigato ama meel kale ay ku idhaahdaan adeer waxani ma aha ma garanaysaaye kama hadli kartid arrintaasee ku ekow thats intellectual maaragtay waxa la yidhaahdo traditional intellectual oo nidaamkii meesha joogay ama ciddii baawarka haystay ayay u adeegayaan bay ayuu aaminsan yahay markaa waxaa laga yaabaa in tusaalayaal badan aanu ka dhex aragno dhinaca organiga haddaan u nimaadno ama dadka aanu nidhi waxa weeyaan organic intellectual oo ah kuwa regardless of maaragtay ama riskigay qaadanayaan ama shaqaha laga joojiyo ama wax kale waxay ka hadlayaan mar bulshada iyo siyaasadooda iyo qof siyaasiyo horay hanti badan u helay waxaa laga yaabaa inay ka hadlayaan power dynamicska waxyaabahaas oo dhan kuwaasina waxa weeyaan organic intellectual abwaanadu markaa inta badan suugaanyahanku waxay soo galaan innaga kaalinta aqoon-yahanka waxa qaata suugaanyahanka inta badan qaata dowladdii siyaad barre inta badan silsiladii sinley labaduba inkastoo ay ishirdiyayeen oo ma garanaysaay qaarna aabasiyaad ay qaadayeen oo nidaamka la jireen qaar kalena ay ka soo horjeedeen haddana inta badan inaga suugaanta ayaa qaadata kaalinta ugu badan ee wax lagu naqdiyo ama organic intellectualka oo ah in critique runa la sheego
suugaanyahanka inta badan qaata Soomaalida aqoonyahanku waxa laga yaabaa inuu riski inuu qaato ka baqayo waxa laga yaabaa inuu ka baqayo in banaanka la dhigo waxa laga yaabaa inuu ka baqayo in benefit personal oo qofkaasi haysto inuu waayo organic intellectualku imika tusaale ahaan halka aqoonyahanka Somaliland oo kale ay nidaamkeena dawladnimo iyo ma garanaysaa dimuqraadiyadda iyo aqoonsiga ay xooga saarayaan kuwa organic waxay xooga saaraan waxyaabaha qarsoon maxaa kamid ah haybsooca kamid ah aniga PhD thesis-kayga wuxuu ahaa gabooyo marginalization root causes legacies and social mobility prospect waa topic la iloobay dhowr ajaanibo iga horeeyay maahe feeras Soomaali PhD thesis ku qaatay ayaan anigu ahaa intaan ogahay marka iyadoo marka waxyaabo badan oo siyaasiyan dawladda iyo dadka ma aragtay powerka haysta ay jecel yihiin in la darso waa in waxyaabaha la iloobayna oo qofku banaanka soo dhigi kara waa inaad maanta markaa daraasad samayn kartaa oo oran kartaa ma aragtay sideen u maareynaa qashinka magaalada waa inuu qofku uu la iman karo marka isagoona u joojinayn waxyaabaha kale meesha yaala marka way yar tahay ma garanaysaa ayay dad qaata war of position waxa la yiraahdo ama ma aragtay uu u bixiyay ninkan Gramsci la yiraahdo oo qofku inuu sacrifice sameeyo wixii runa ee dadka u dana siyaasiyan iyo nolol ahaanba uu qofku qaato marka labada category aqoonyahanka Soomaalida haddaan ku dabaqno waxa badan traditionalka oo de waxa gabay loo qaadayo siyaasiga oo adiga arkayo ma garanaysaa aniga laftayda maalin dhawto anoo siyaasiga waxa la igu dulduubay hal doorka midhihi ba qaadaya waxa lagu soo dulduubaya ma aragtay ama habar yar guuleyso ama wax kale marka more waxa weeyaan dadkeenu ma aragtay traditional ma aragtay organic halku uga hadli lahaa dadka dan yarta waybay sidan nolosha u socoto ay u socotaa markaan ka nimaadna ka labaad ee eegayno waxa weeyaan Edward Said Falastiin Mareykanka tagay buugga Orientalism theory-gaale oo post colonialka dadka ugu badan ee darsay weeyaan wuxuu leeyahay isagu markaa buug la yiraahdo ama wuxuu qabtay keyword la yiraahdo representation of the intellectual la yiraahdo waxa lagu turjumay guud cadaalad turjumo kaalinta indheer garadka ayaa la yiraahdaa buuggaas isagoo Soomaaliyeed waad heli kartaan isagu wuxuu ka hadlayaa concept-ka aan maanta halkan u fadhino indheer garadku kaalin maxay bulshada u qaadanaya aqoonyahankan aanu ka hadlayno kaalinteebu ku jira weeyaan isagu wuxuu leeyahay intellectualku waxa weeyaan qof bulsho ahaan committed sidoo kalena dadka laga dhex arki karo anan Dr. Hebel weeyaan anan ahayn qof runta wax ka sheega doodiisana evidence ama cadayn ku saleeya oo de wax rational keena rationalku waxa weyn caadifadii meesha laga saaro haddaan iraado marka wadooyinkeenu waxay ma aragtay u liitaan because of the management ama ma aragtay qandaraaska sa loo bixiyo waa inaan evidence keeni karaa marka oo anan caadifad anan ahayn marka isagu wuxuu leeyahay key concepts buu leeyahay wuxuu leeyahay affiliation ama opposition wax la yiraahdo oo wuxuu leeyahay intellectualku qofka indheer garadka waa inuu ka fogaadaa meelahan ma aragtay awoodda haysta dawladda waa inuu ka fogaado waa inuu ma aragtay institutions kan kale wax ka sheegaya ka fogaado arintaa waxay keenaysaa marka inuu qofkaasi ahaado ma aragtay qof xor ah fikriyan oo wuxuu doono qori kara marka haddii laakiin maanta aad wax qorto berito la yiraahdo mishaarkii baa lagaa joojiyey ama jaamacadda siyaasadda ka dhigaysa hadday tiraahdo berito arrimo siyaasadeed waxa laga yaabaa ardaydan inaad u dhigto political science inaad dhigayso haddii aad mediaha lagugu arkana waxa laga yaabaa in arrintaasi ay qofka saamayso marka isagu wuxuu leeyahay intellectualku waa inuu noqdo qof banaanka ka taagan nidaamkan uu kritigaraynaya haddii kale wuxuu noqonayaa qof nidaamkaasi la shaqaysanaya markaa representationka ama kaalintiisuna waxa weeyaan buu leeyahay waa inuu u hadlaa dadka aamusan dadkaanan codkooga la maqal
dadka masaakiinta dadka siyaasaddan aanu ka hadlayna ay noloshooda qaabayso waa inuu u hadlaa qofkaasi dadka la haybsooco waa inuu u hadlaa waa inuu dadka aanan matalaad haysan aanan codadkooga la maqlayn waa inuu matalaa qofkaasi ayaa uu leeyahay marka wuxuu qaabaynayaa arrimaha wacyiga bulshada wacyiga uu qaabaynaya waxaa laga yaabaa in berito go-aanada bulshadu ay qaadanayaan dowladda hoose ayaa xildhibaan noo noqonayanu dooranayna in maaragtay haddii intellectual saxa la helo markaa codkeennu inuu qofkaasi intellectualkaasi uu qaabeeya laga yaabo oo berito aanu ka guurno nidaamkan traditionalka ama sidaa loo codeeyo maanta oo loo guuro si kale haddaba markaanu aqoon-yahankeenna eegno positionkaa miyay taagan yihiin miyaanu heli karnaa markaa qof intuu xerow noqda ama suufi noqda suufigu dee wax kale maaha waxa weeyaan qof noloshan kale ka baxay cibaado u go-ay qof markaa aqoon-yahano ama indheergarada oo sidaasi ma garanaysa ayay sameeya miyaa la helaya that's equation marka waa sababtaan u leenahay markaas awaanadu in badanoo awaanada ka mid a waxa laga yaabaa marka dad badan oo aanu aragnay oo intellectualkeenna ama indheergaradkeennii ahaa wax badan si xora way u hadleen yes oo nidaamyada jira iyo awoodaha jira iyo laakiin halkee bay ku dambeeyaan qaarkood waa isdiidadan waxaan keenaya markaa qofku markuu siyaasadda soo galo nidaamkii 50 sano ama 40 sano ama 30 sano wax ka qorayay iyo maaragtay wixii uu kritigaraynayay ayuu qofkii aqbalaya markaa kabacdina dee waxuu hore ula qabsaday maaha waxa isdiido ay ku imanaysaa wixii uu diidanaa marka uu qofkii soo galo dhinac kalena marka laga eego waxyaabaha intellectualka hadduu jiroba maaragtay indheergarad soomaaliya oo criteria hadda baqa dee nidaamkii inuu banaanka ka joogo waxa ku qasbaya waxa weeyaan principaleskan iyo waxyaabahani laga filayo maaragtay isaga marka waxa laga yaabaa qofkii markaa inuu iska qaato NGO inuu NGO ka shaqeeyo waayo dee waxna waa needs noloshii waxna waa wants needsku waxa weeyaan baahida asaasiga ah qofka cuntadiisa hoygiisa caafimaadkiisa waxaas inuu helo kabacdi wuxuu u gudbi doonaa waxyaabaha kale dheeriga ee luxuriouska ama wantiska marka adigu markaad noloshaadii meel saarto ayaa meel kale loo gudbi karaa that's why marka intellectual badan ama dad badan oo indheergarada oo Soomaalideena ay NGO ama consultant buu noqonaya waxa laga yaabaa wasiir suulka ku saxeexay inuu consultant u yahay oo dadkuna ay la yaabeen yihiin leeyihiin war wasiirkani xitaa ama maaragtay siyaasigani degree muu qaadan haddana mid PhD waxa laga yaabaa inuu la taliyo yahay meesha hoos jooga marka qofkaasi wuxuu iska noqonayaa maaragtay in because of the harsh reality-ga dee waddankeena ka jira ayaa qaabaynaya marka waxaa kaloo jira intellectualka Soomaalideena marka la eego diaspora public intellectual baa jira ama dad dibadda joogo dibadda ka soo hadla iyaguna banaanka jooga professor Cabdi Ismaaciil Samatar Faisal Roble ayaa iyagu more dad intellectual independent professor Cabdi Samatar oo kale isagoo senate-ka ku jira ama aqalka sare sababta mar walba media-ha uu u taagan yahay nidaamkii uu ku jiray uu wax uga sheegayo waa roolka intellectualka aqalkii sare ku jira waa senator wax laga yaabaa dee dadkeena average-ka inay yidhahdaan war ninkani mucaaradnimo ku dhimanaya waayo waxaan ku garaadaysanay BBC-da isagoo ka hadlo mucaarada ayaan ku garaadaysan dowladdii farmaajo isagoo mucaarada bay dad badani arkeen iminku mucaarad yahay haddana dadkaasoo kale markaa waxa weeyaan kuwa loo qaateenka iyo Faisal Roble iyo la odhan karo waxa weeyaan kaalintii intellectualka ayay ku jiraan laakiin waa goorma waa xilideen baahidoodii nololeed oo dhan ay soo dabooleen marka mid junior oo maaragtay timo madow oo inagoo kala imika kaalinta intellectualka ma qaadan karaa weeyaan su'aal kale iyaduna meesha taalo weeyaan oo dee ma garanaysayay mise markuu qofku 70 jir noqdo 60 jir oo noloshiisa meel saaray ayuu intellectual noqon karaa waa su'aal kale ka saddexaad
Frantz Fanon isagu wuxuu xooga saaray wretched of the earth buug la yidhahduu leeyahay isagu wuxuu xooga saaraa gumaystaha kadib iyo intellectual betrayalka dhacay ama gumaystihii markuu waddanka ka tegey dadkii aqoon-yahankii ama indheergaradkii khiyaamada ay ku sameeyeen dadkii la gumaysanayay ayuu ka hadlaa marka isagu wuxuu eegayaa psychological iyo structural maaragtay psychological waxa weeyaan maskaxdeena structuralna waxa weeyaan qaabka dawladuhu ay u jiraan ay u dhisan yihiin ayuu eegayaa wuxuuna ka digayaa marka dadka postcolonial elitiska ama dadka bulshada hogaaminayay waqtigaa gumaystaha kadib oo ay ku jiraan aqoon-yahanku sida ay u khiyaamayaan maaragtay dadka kale public mask khiyaamo kale maayo waxa weeyaan sida nidaamkii gumaystaha unay ay u sii wadayaan marka haddee waa kii qaasim lahaa abween qaasim isma doorin gaalkan diray iyo daarta kii galay gumaystihii baan xorriyaddii laga qaatay ingiriisku ninuu soo tababaray oo local dowladdiisii localkii ku jiray unbaa la wareegay meesha iyo tim markaa waa kii lahaa isagu kaalinta indheergaradku markaa tusaalaha ugu fiican in qaadan karna waa kaa isma doorin gaalkan diray iyo daarta kii galay buuri dusha midabka soomaali baad duub ka moodaayay haddana waa dirkii karan gabaygu noocaas u dhignaa wuxuu ka hadlayaa ninkii caddaankii meesha ka tegey ama kii la dilay koofil iyo xorriyaddii marka la qaatay kan madoowe meesha jooga ee af soomaaliga ku hadlaya inay isku wado ay hayaan ayuu ka hadlaya marka intellectualka maalintaa joogay kii ingiriisku waxbaruu dalka ku wareejiyey maahine wuxuu ahaa kaa abwaanka ee gartay waxaa kaloo jira dood kaloo dad badani ay ku doodaan oo ah tusaale ahaan gumaystihii soomaalidu wuu kala duwanaa somalilan oo kale lama gumaysan bay dadka qaar ku doodaan oo waxaa la odhan jiray british protectorate oo heshiisuu ingiriisku la galay waxa la yidhaahdo reerihii kala duwanaa haddana intellectualkii markaa joogay ama indhergaradkii markaa joogay waa kuwa le ninkii aabbahay dilay anigana i addoonsaday waa kan abwaanku le aan ooye albaabada iyo xidha reality buu kaasi ku noolaa maalintaa oo uu arkayey marka hadduuna gumaysi jirin kuwii markaa joogay sidaa ugamay ooyeen dee marka halkaa waxaanu ka arki karnaa in intellectualka mar walba maaragtay ama indheergaradka ama aqoon-yahanka aqoonta maaha dee tiime formalka iyo sidaanu definitionka ku soo sheegnay in qofku uu jaamacad galo maaha qofku siyaabo badan oo kala duwan bu wax ku baran karaa baanu nidhi marka waa kaa markaa ninkan wuxuu ka hadlayaa class dadkii meesha ka baxay classeski ay abuureen ayaa meesha jira marka wuxuu ka hadlayaa class formation wax la yidhaahdo ama new bourgeois oo dadka awoodda haysta ah markaa bal waxaad eegtaa inkastoo innaga ayna jirin dee beri waxa dhacay nin baa noo sheekeeyey wuxuu yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariiste oo ra-iisul wasaare ah soomaaliya 1969 ayaa dugsiga camuud noogu yimid wuxuu war annagu waan sii soconnaayo odayaal baan nahay waddanka idinkaa mustaqbalka idinkaa dhallinyaro oo la wareegaya 30 sano kadibna isagoo madaxweyne oo arday qalin jebinaya sidaa kulaan arkay buuri 2002 dhowr iyo 30 sano kadibna kuwo kaluu ku lahaa war idinkaa anagu waan iska tegnay idinkaa maaragtay mustaqbalkii dalka ah marka ninkani wuxuu ka digaya waxa weeyaan in intellectualka iyo indheergaradku ay khiyaameen bulshooyinkii ay metelayeen oo ay u dhiseen ay ku kala safanayaan dadka powerka haysta marka somaliland keiskaas soomaaliya keis kale u soo qaado cabdirashiid cali sharmaaka allah u naxariistay wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii koobaad ra-iisul wasaaruhu ah soomaaliya madaxweynihii labaad buu ahaa inankiisii baa ra-iisul wasaare noqday haddana mar labaad buu noqday waa imisa waa 60ka sane xorriyadda kadibba kuwa uu ka digayay markaa uu leeyahay intellectualku waxay dhisaan kuwa narrative-koogu kuwa weeyaan oo uu leeyahay hebel iyo hebel aan ku kala safano qofkii markaa hal mar salaanka soo fula siyaasadda soomaalidu waxaa ka maqan intellectualkii qofkaasi xaqiiqada ka sheegi lahaay oo dhan wuu maqan yahay kaun baa lagu daba saftaa marka ra-iisul farmaajo isagoon la garanaynin buu yimiday ra-iisul wasaareha laga dhigay
iminka sheekadiisu waxay maraysaa dhowr iyo 10 sano roobloo ahaa maaragtay UNT meelaha ka shaqaynay baa la magacaabay waa musharaxba iminka already ciyaalkiisuna inay wax laga yaabaa intellectualkii markaa dadka kala shaandhayn lahaa runta ka sheegi lahaa siyaasaduna kuwan unbay ku kala safanayaan waayo powerkii bay ay haystaan markaa dadkii waxay noqdeen buu leeyahay technocrat intellectual ayaa haddaan kan ku eegno technocrat intellectualku waxa weeyaan in aqoon-yahankii uu ka sheekaynayo waxaa la yidhahda state building ama waddankii sida loo dhisaa iyadoo markaa qofkii una bariiskiiba haynba marka priority-gu halku ka dhigi lahaa waar sidan ha laga daayo dadkoo maaragtay qofka dadkani waxay ku survive garoobaan ha loo sameeyo waxaa laga yaabaa inuu isagu ka fikirayo recognition iyo ma garanaysaa ayay waxyaabahaas ka saddexaad ka afraad cali masraawi isagu wuxuu ka hadlayaa caqabada haysata aqoon-yahanka weliba afrikaanka oo wuxuu leeyahy waxay leeyihin tribal heritage 3 shay ayaa ay leeyihiin oo ah in qofkii islamic tradition uu haysto oo ma garanaysaa ayay dhaqankii diinta uu hayo kow uuna ku dhaqmayo labo in laga rabo maadaama waxaanu ka hadlayno siyaasad ay tahay western modernitygiina meesha ay ku jirto western modernitygu waxa weya nidaamkan dowladnimada casriga ah ee institutionskan saa reer galbeedka u dhisan la sameeyo iyo african indigenous system in meeshii uu ku jiro ayuu isagu ka hadlaya marka wuxuu leeyahy meesha waxaa ka imanaya cultural pluralism iyo cultural confusion oo ah sidii bal waxan la iskugu hayn lahaa nidaamkeena qabaliga ah ee odayga cashuurta weli soo guro ee uu haddii qofkii wax sameeyo chief caaqilkii soo xidhayo iyo nidaamkeenan cadaaladeed ee formalka ah ee maxkamadihii leh ee booliskii leh ayaa uu ka hadlayaa waxaa kaloo ka hadlayaa waxa la yidhaahdo in la casriyeeyo in la afrikaaneeyo modernitygii ama casriyeyntii oo valueskeenii in wixii lagu daro arrintaa waxaa ka dhalata buu leeyahay isagu markaa waxa la yidhahdo intellectual schizophrenia oo ah marka qofkii anigoo muslina oo shareecadii aaminsan haddana maxkamada nidaam maxkamadeedoo kale oo si kale u qoraneey indial banal code uu halkan yaallo dee indial banal code uu halkan yaallo intellectually markaa qofkii ama qofkii dee aqoon-yahankii labadaas siduu u dabiqi lahaa uu dadka dee uga dhaadhicin lahaa iyo wixii baa iyaduna meesha taala marka haddaan mandaqadeena soomaalida aanu ku eegno 3 heritage iminka qofkii waa muslim haddana xeerkii qoyskaa jabuuti oo kale jira oo dad soomaaliyeeda oo muslimiina siyaad baroo kale waa kii dhaxalku waa 50-50 adeer waxaas idinkaa laydin idhaa intellectualkii maalintaa joogay markaa aqoon-yahankii maalintaa joogay culimadii la laayay oo keliyaa tiri war waxaas waa xaaraane ayad qur-aanaa jidaysayni oo qof walba xaqiisa siisay kuwiina waa kii la dilay aqoon-yahankii kale soomaalidii u buuxay iyagoo jaamacadaha ka soo baxay iyagoo jaamacadaha dhiga dee markuu ninkii dhintay alla u naxariistay baa ayaa laga sheekeeyaa khaladaadku galay maalintaa laakiin may hadal maalintaasi ma aysan hadal marka mar islamic valueskii ayaa qofkii qaabaynaya oo ma garanaysa marna waxaa laga rabaa inuu nidaamkii reer galbeedka qaato western institutionskii uu raaco iskuulkii soo maro dimuqraadiyadda ee halkan taalo beri dhowito waxaa la isku hayey xeerka kufsiga ee somaliland baa la isku hayey weli lama ansixin baan u malaynaya ma hubo laakiin dee dood adag baa beri dhowito la ka taagnayd diintu waxbay jidaysay westerniskii waxbay jideeyeen dowladnimadeediina waa kan wasaaraddeedni cadaaladdana waxa laga yaabaa inay niman reer galbeed ay mashaariic ay soo dhex marinayaan ayaa laga yaabaa clan structure ayaa dadkii midaynaya oo dee iminka anu markaan tego burco ama hargeysa jooga dee reer booramaanahay laakiin actually boorama 10 sano ma degeniba 10 sano ma degeni marka realitieskaaas oo dhan ayaa waxay qaabeeyaan buu leeyahay intellectualka
qofka maaragtay inuu arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha ka hadlo marka Soomaaligeena haddaan dee ku dabaqno islaamkii ama diinteenni waxay qaabeynaysaa akhlaaqdeena waxa la yidhaahdo shuruucdeena oo dee waxyaabaha maaragtay maxkamadda degmadoo dhan ay ka shaqayso waa arrimaha qoyskana dee diinta islaamka ku dhaqanaa meherka furiinka dhaxalka waxaasoo dhan haddana nidaam kaloo waxaa ag yaalla dhinacan kale wadamada westernkuna waxaanu nidhi dee educationkeena iyo siyaasaddeena iyo maaragtay waxyaabaha iyagaa saameeya calan structurekiina wuu yaallaa marka qofkii aqoon-yahankii muxuu ku dhex lumayaa isdiidooyinkaas ayaa uu ku dhex lumaya oo waxaa laga yaabaa ethically waxyaabo khalada uu arkayo in ay khalad tahay inuusan maaragtay ka hadli karin because of that maaragtay isdiidooyinkaanu ka hadlayn intaasi marka ay yihiin theorieskii iyo oo weliba aanu ku dabaqnay contextkii Soomaalida waxaan eegaynaa marka bal trajectory-ga ama taariikh ahaan kaalinta uu aqoon-yahanka Soomaalidu ama dheergaradka Soomaalidu siyaasadda uu ku soo lahaa hadda marka waxaan haysanaa siyaas fiican oo aanu ku fahmi karno aqoon-yahanka iyo siyaasadda xorriyadda intaana la qaadan dowladihii daakhiliga 50 ilaa 70-yadii Soomaalida waxaa inta badan ka jiray nation building wax la yiraahdo ama in qarankii la dhiso dad badan oo aqoon-yahani waqtigaa way ka qayb qaateen oo maaragtay qayb bay ka ahaayeen wasaaradaha ka qayb qaateen wacyigelinta ka qayb qaateen diblomaasiyadda ka qayb qaateen oo role active ayay qaateen waqtiyada Cabdilaahi Ciise ka mid ah ra'iisul wasaaraha Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal baa ka mid ahaa oo wuxuu qoray beber pastoral culture-ka iyo siyaasadda uu kaga hadlayo beri hore I think inay sax tahay public engagement badan bay sameeyeen inkastoo elitku ama dadkan awoodda haystay ay ka dambeeyeen haddana waqtigaasi dareenkii waxaa la dhisayay dowladnimo intellectualkuna qayb badan bay ka ahaayeen that's why waxyaabaha Soomaaliya loo geliyey waxaa la yidhaahdaa dowladdii gaadhsiinta ee Talyaaniga waxaa la waayay dad secondary ka baxay oo lagu wareejiyay dowladnimadii waa 1950 ayaa la waayay 1940 wixii markuu soo dhamaanayay la rabay in lagu wareejiyo dowlad loo kala that's why Talyaanigu uu soo noqday baa la yiraahdaa General Galaalo ka sheekeynaya narkoole xitaa waraaqii SYL iyo waxa qori jiray Michael Mariam iyo rag kale oo loo yaraa ayaa qori jiray marka nidaamka waxbarasho ee Soomaaliland maadaama waqtigaa uu ka fiicnaa ka kale Soomaaliya koonfurta dad badan oo ma garanaysaa intellectual nation building ka qayb qaatay mainlyna dad badan oo technocrat ah waxay ka tageen Soomaaliland bay ayay ka tageen marka xilligaasi waxay ahayd 1950 ilaa 70s 69 buu marka afgembigu dhacay marka xilligaa mucaaradad adag iyo dimuqraadiyad iyo wax walba way jireen afgembigu markuu dhacay wixii ka dambeeyay marka maxaa dhacay military rule baa yimid military rule-ku dee waa kii yidhi waa kii aayadda qur-aanka madaxweynuhu nasakhay iyagoo arkaya dadkii oo dhan 10kii wadaadee ka hadlayna waa kii la dilay wadaadadii marka xilligaa maxaa dhacay waxaa dhacay horta xilligii gumaysiga baalkii afgembiga dadku aad bay u soo dhaweeyeen oo dee waa kuwii heesaha kacaanka ay u qaadayeen oo corruption baa daaliyey dowladdii rayidka ahayd 1960 ilaa 69 aad baa markii hore loo soo dhaweeyey markii markaa la arkay in nidaamku dictator caadi uu ku socdo scholarskii ama wadankay ka baxeen ama waa la aamusiyey dadkii wax bartay intellectualkii markaa ama wadanka way iskaga carareen ama waa la aamusiyey xilligaasi cilmigii dadka hagi lahaana waxa uu noqday survival buugga haddaad akhridaan buugga way noo Muqdisho Maxamed Aadan Sheekh oo qoray oo wasiirkii hore caafimaadka ee waqtigii kacaanka ahaa raggii xisbiga anti-wadaagga kacaanka Soomaaliyeed aasaasay ahaa wax badan oo waxaanaad ku dhex arki doontaa inta loo diro qorshe iyagoo si filo wax bartay ay markay keenaan bay militarigu laagayeen waxay keenaanba ama waxba kamay soo qaadeen kabacdi markay hadleen isagoo wasiiro waa kii la xidhay 6 sano marna xilka laga qaaday mar isma casili kartid baa lagu qabsaday markuu is casilayna waa la xidhay haddana waa la soo daayay haddana dib baa loo xidhay marka arrintaasi waxay noqotay ciddii
roolka intellectualka qaadatay dowladda militariga criticize garaysaba in ama la xidho ama ay waddanka iskaga cararaan 1991 dowladdu markay duntay wixii ka dambeeyey dowladdii dhexe Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay markaa diasporaha ayaa iyaguna soo kacay oo halkaa ka soo hadla waayo xorriyad buu haystaa ingiriisku ka soo dhaliilaya waxa Soomaalida ka socda laakiin dee intuu halkan imaado dhaliili maayo marka waanu haddaanu ku salayno markaa theoretical backgroundkeenu waanu fahmaynaa sababta uu kaasi xorriyad badan u haysto sidoo kale local scholarska ama dadkii wax bartay aqoon-yahankii gudaha dee iyagana waxaa frame gareeya xaalad dhaqaale xaalad siyaasadeed duruufo nololeed qaarkood waaba la dilayba wariyayaashoo xaqiiqay noo soo gudbiya waxaa laga yaabaa in intaasoo xadhiga ay la kulmaan haddaanan la dilinba oo dee way kala duwan yihiin deegaanada Soomaalidu way kala duwan yihiin dowlad deegaanka Soomaalida duruuf gaara Djibouti duruuf gaara Somaliland baa ugu roon Soomaaliyana dee waxaad daawataan barnaamijkii Xasan Xanafi wariyayaasha haddaad wariyayaasha warkooga inaad heshaan rabtaan barnaamijkaasi baad marka fragmentation baa dhacay qofkii aqoon-yahanka markaa uu isleeyahayba meeluu joogaba bulshadiina waxaa vacuum waxa bilaabmay bulshadiina inay qofkii soo gaari weydo qofkii dhowr jeer runta ka hadlee wax dhaliila in la yidhaahdo waa ninkan isagaa wadariya waa axmedkee waalan dee hadba kii khaldan baa waalan waa inay xikmadi timaadaa hadba kii khaldan baa waalan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee keligii buu bilaabay dacwadda haddii maalintaa markaa wadariya waa axmedkee waalan ay ahaan lahayd dee waa la lumi lahaa marka qofkii intellectualkii waxa laga yaabaa ama indheergaradkii isagoo keligiiya oo cawlan inuu bulshada iska dhex joogaa laga yaabo laakiin ha fikirkiisii iyo ma garanaysaa siduu siyaasadda uga hadlayay iyo wixii oo dhani ay muhiim tahay marka waxaa laga yaabaa in dadka ay materialistis ka noqdaan oo la yidhaahdo ninkaasi xikmad baa ku jirta laakiin wax loogu joojiyo power loogu joojiyo iyo dhaqaale loogu joojiyo inuusan lahayn baa laga yaabaa marka hadda maxayna haysta markaa contemporary dilemmaan galaynaa oo qaybtii u dambeeyey intaanan su-aalaha furin autonomy iyo alignment waxaan ka wadnaa waxa madax bannaani iyo inaad dhinaca ku safnaato as intellectual ama qof wax bartay ama aqoon-yahan baan idhaahno ama abwaannimada ka soo gal ama dhinaca diinta ka soo gal waxayna haysta waxa weeyaan halkii intellectualku uu noqon lahaa qof madax bannaan hab fikir ahaan runtana ka sheegi lahaa dhacdooyinka bulshada waa inuu koox ku jiraa alignment waa inuu meel la ahaada ama siyaasi buu maalintaa difaacaya waxa keenayana maaha wax ma garanaysayay daciifnimo ka timiday intellectualkan laakiin waa social structure-kii bulshadeenu soo qaabaysnaa concept markaa waxaa jira la yidhaahdo sociology-ga concept la yidhaahdo waxaa jira structure and agency structure-ku waxa weeyaan bulshada iyo qaab nololeedkeega iyo dowladnimadu sida u qaabaysan tahay ayaa waxay maaragtay saameyn ku yeelataa qofka oo qofku hab fikirkiisa siduu u fikirayo siduu u dhaqmayo waxaa saameeyey structure-ka uu ku jiro wajaale teg wajaale dhinacan soke markaad joogto waxa laga yaabaa dadka jigjiga tagaa garanaya magaalo qaranna duca lagu dhaafaa marka xadhigga laga soo tallaabay dhinacan Somaliland immigrationku hadday ku yidhahdaan waa balkaalay inuu qofku karahsadaa laga yaabaa ku yidhahdo orda naga taga structure-kan ku noolahay baa markaa ayaa arrintaa qaabiyey marka agency-guna waa keligii waxa weeyaan qofku sida uu structure-ka u qaabeeyo oo kaalinta markaa indheergaradkii aqoon-yahanku meeshu ka imanayo weeyaan marka inagoo imika isku duruuf ku nooloo boorama ku wada kornay dhammaanteen haddii aan is idhaahdo markaa aragtidaa boorama dadku ay qabaan ka duwani waa adigu qaabee I'm the agents dee markaa waxaa laga yaabaa in la yidhahdo wadariya waaxid midkee waalanti indheergarad badan markaa noocaasi ama intellectual badan ama aqoon-yahan badan oo maaragtay nolosheena inay qaabeeyaan raba waxaa haysata dhibaatadaasaa laga yaaba dilemadaasa haysata waxna waa structure-kiyo waa sidii lagu soo noolaan jiray waxna waa agency-giyo waa kaalintii indheergaradku watay weeyaanoo keligii isagoo aqoon-yahan u rabaa inuu saameeyo hab fikirkeenna iyo sidaanu u nool lahay iyo siyaasad ahaan sidaanu wax u aragno marka caqabad badan waxaa laga yaabaa markaa wax generation soconaya inay tahay dee aragtida isagu buddhig u yeesho oo nimankii imika aanu ka hadlaynay oo dhan dee midaan
kii koobaade Gramsci prison notice-ka jeelku ku dhex qoray waa notice-kii jeelku ku dhex qoray Edward Said Falastiini buu ahaa Mareykanka tegey the terrorist professor baa la odhan jiray because aragtiyaha uu haystay baa Mareykanka threat ku ahaa iyo wacyiga dadka marka innaga qofkii aqoon-yahankii hadduu kaalintaa qaato uu silencega ka baxo xitaa oo yidhaahdo dadka engage garee noloshiisa iyo duruuftiisa intee bay u saamaxaysaa weeyaan su-aal kaloo iyaduna muhiim oo meesha taala neutrality and responsibility iyaduna waxa weeyaan dileemo kaloo haysata inuu qofki iska dhexdhexaadaado iska aamusnaado iyo inuu noqdo qof maaragtay responsibility ay mas-uuliyad saaran tahay oo annagii lahayn iminka Edward Said representation of the intellectual waxa uu leeyahay qofku waa inuu runta ka hadlaa oo dadka ku hagaa regardless of the consequence-ka haysta marka academic rigor ama public relevance inuu qofku jaamacad intuu ka soo baxo isagoo degree haysta nin medical doctor waxa laga yaabaa in iminka la leeyahay waa aqoon-yahan haddana siyaasaddii qayb kama ah in la leeyahay all in all waxyaabaha kale iyaguna intaa ka baxsanee intellectualkeena haysta mar waxaanu ka hadlaynaa inay runta ka hadlaan oo ma garanaysaa ay bulshadii hagaan marna inay political participation iyagu ay qaataan dee qofka intellectualka aqoon-yahanka ah waxa uu leeyahay role laga filayo oo dadku ay ka filayaan siyaasaddeeniina structure-kii aanu ka hadlaynay ayay u qaabaysantao waa wax weligeedba la soo maali jiray adoo intellectuala markaa intaad shir jiraayad qabato ree hebel aad dhaleecayso oo tiraahdo kursigaasaan isku riixanaynaa ethically dee waxaad aqbali karta maaha dee waxaad samayn karta ethically adigo maaha waxay bulshadu kaa aqbalaysana maaha marka labadii jeerba waa hashii laba midig la garaacay dhanna uma fayoobo weeyaan siyaasaddii buu soo galay waa intellectual in badan buu falanqeeyey uu soo galay xildhibaan buu rabaa xildhibaankii waxay haystaanba mid reerkoogiya structure-kana kama baxsan karo oo qof kale uma codaynayo qofkii marka dileemooyinkaasi ayaa ku gadaaman qofka intellectualka ama aqoon-yahanka ama indheergaradka iyo arrimaha siyaasadda intaa wixii ka dambeeya waxaan discussion iyo ciddii su-aal haysa ayaan siin doonaa aad iyo aad baad umahadsantay